السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتك كلا دويني كوحنا جنال كان جرافيكس كسو هذا مقال عصب مقال كان وقيبتي كواد برامج كأنه قعدرني سيدي أيام الضوبة كمبيوتر كي شاشة ديسا أنبا سكرين كمبيوتر كي سوفت وير كان حلو مقعابا كمتيسيا لبكون يستقالي طبعا وفرش كي قدامي شركة كمتيسيا سو صارتي هل كان waxa kaaga muuqda shaashadan muuqaal aan soo duubnay anagoo design gareynayna kabo cusub oo fashion ah kadibna adeegsanayna barnaamijka caanka ah ee Photoshop 2020 oo ay leedahay shirkadda Adobe barnaamijka aan ku duubayna shaashada kombiyuutarkeena markaas waa Camtasia 2019 Camtasia 2019 si aad u fahanto waxa ka siinaya sharaxaad yar wuxuu u shaqeeyaa laba step oo muhiim ah labada step isla hadda ayaan adeegsanaynaa labada stepka koowaad waa marka hore inaad muuqaalka shaashada aad isticmaalayso aad ku duubto marka labaadna asaga ayaa ku gudbin doona wuxuu ku gudbin doonaa isla shaashadii aad isticmaalaysay ayuu wuxuu kaaga dhigi doonaa muuqaal uu duubay oo hadlaya markuu taas kaaga dhigana waxaad awood u yeelanaysaa muuqaalkaas aad ku duubtay inaad ku samayso wax la yiraahdo animation tusaale yar haddaan halkan hadda bilay iraahdo muuqaalkan ujeedaas uu dhacayo hadda laakiin waxa lagu sameeyaa zoom in iyo zoom out kabahaas oo barnaamijka ku dhex jiran oo la soo dhaweeyo oo meel lagu keeno waa kan marka labaadna waxa dhici doonta in dib loo celiyo oo positionkiisa la geeyo aniga hadda wax animate aan soo jirto laakiin muuqaal animate kareysan ayaan idin tusaaleynaya si aad u fahanto qofkan positionku ka shaqeynayo iyo toolsku adeegsanayo barnaamijyada wax lagu edit karayo waa inuu zoom in ku soo sameeyo oo muuqaalka position ka shaqeynayo tusaale halkan oo kale qof markuu ka shaqeynayo oo hadda circle-kaas jaalaha ee uu ka muuqdo markuu ku sameynayo waa inuu zoom in ku sameeyo wax la yiraahdo ku soo dhaweeyo waxaagii si aad u aragto positionka iyo toolsku adeegsanayo muuqaalkan hore ayaan u duubay kabahana ujeedadii shaashada Photoshop wajid hore ayaan u duubay laakiin hadda waxaan adeegsanayaa si aan idinka faa'iideeyo kale positionkii aan adeegsanayay iyo toolska aan adeegsanayay Photoshop ayaan waxaan idinku sameynayaa zoom in laba jeer ayaan waxaan adeegsanayaa barnaamijka caanka ah ee Camtasia qaybtan hoose u fiirso bannerkan hoose waxa yaala laba logo oo isla barnaamijka Camtasia kaas hadii aan dul saarno calaamada waxa soo baxaysa inaan wax ku duubayno halkan head back ka kacay headkan ka kacay isla hadda aad u jeedid waa codkayga hadda aan kugu la hadlayo waxa soo kacaya 3 daqiiqo iyo xogaa ayuu duubaya midda ku xigtana waa isla shaashadan aan duubayno aan animate ku sameynayno marka muuqaalkan saad u fahanto waxaan sameynayaa waxaan geenayaa halkaas bartankaas ayaan geenayaa kabihii boosiska joogan hal animation kaliya ayaan saarayaa si animationada damana aad ila socoto halkan ayaan click sin doonaa kadibna waxay soo baxaya animationadan kala duwan oo mid walba markaad calaamada circle ka saarto oo xarakaad sameynayo kuuna sheegayo shaqada uu qabanayo tusaale skill up oo kale wuxuu ku sameynayaa inuu soo dhaweeyo kabahaas iyo software ku dhex jira inuu halkan dhow ku keeno halkan ayaan dhigi doonaa animate-ka aan soo qaaday marka halkan dhigo ujeeda dhamaanteed wala soo qaaday haddaan in yar gadaal u qaado oo halkan aan geeyo positionkii kabihii bartoodii bay joogaan laakiin haddaan calaamada headka inta dhaqaajiyo oo lamaas ku dhaqaajiyo aan dul geeyo waxaad arkaysaa inuu aad u soo kacay kabihii oo ay soo dhawaadeen waxaan sameynayaa inaan dib u celiyo positionkeeda ku celiyo maadaama software-kan adeegsanayay geesahan qayb ka maqan tahay okay skill down baan leeyahay halkan dhigayaa skill down waa ujeedaa positionkeeda ayaa lagu celiyay siyaalaha fudud ayaa loo adeegsadaa haddaan hadda intii yareed aan sameynay aan play ku iraado xarakaadka yar hadda aan damadan sameynay play ku siiyo sidan ayay u dhacaya animationku tusaalahan oo lagu soo dhaweeyay positionkan aan ka shaqeynayo oo hadda calaamada circle-ka jaalaha ay marayso ayaan sameyn hay'aa celin position gadaala celin sidaas ayaa waxa lagu sameeyaa zoom in iyo zoom out wixii kale oo transition dhacaya iyo waxyaalaha kale oo la adeegsado iyo calaamadaha circle-ka la adeegsado iyo tilmaamaha la adeegsado dib ayaan u sharaxi doonaa waynu heli doonaa barnaamijka intaan ku ogyahay wuxuu leeyahay qayb saddexaad oo aan doonayno in si toos ah muuqaal ugu animate karino inagoo si toos u duubayna